mowjadaha siyaasiga ayay hirdanka loolankiisu adag yahay ee uu xilligan waajahayo xusbiga mucaaradka ee kulmiye ayaa sababay ku dhowaad 6 jeer inuu baaqdo kulan loo ballansanaa in lagu diyaariyo guddida qabanqaabada shirweynaha xusbiga kulmiye oo loo ballansan yahay horaanta bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 maanta oo taariikhdu ahayd bishii 7/7/2025 ayaa mar kale mas'uuliyiinta iyo madaxda xusbiga kulmiye iskugu yimaadeen aqalka weyn amase xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland si ay uga arrinsadaan mowjadaha isbarkan ee markan ka imanaya qaar ka mid ah beelaha rugniga oo ah xusbigaas oo iyagu siyaasadda iyo jaangoynta xusbigan xilligan daneen weyne ay ka hayso. Shalay ayuunbay ahayd markii mid ka mid ah beelaha reer Somaliland ay sheegeen in musharaxa guddoomiyenimada xusbiga kulmiye ay isku raaceen nin dhalinyaro oo ay sheegeen inuu yahay ka ku meteli doona deegaankooda. hase ahaatee xusbiga ayaa isaguna ku beegay maalintii ku xigtay oo maanta ahayd inuu wax iska weydiiyo jihada iyo halka la aadayo. mas'uuliyiinta ugu sarreysa xusbiga ayaa qaar ka mid ah xubnaha xusbiga oo ka tirsan golaha dhexe ay ku canaanteen markan wax kastaba iyo fursad kasta oo bannaanka xusbiga looga hagayo inay bixiyeen mas'uuliyiintu oo haddii go'aan rasmi ah ay gaari lahaayeen xubnaha sare ee xusbiga kulmiye horena loo dardargelin lahaa hawsha sida weyn loogu madlan yahay ee shirweynaha xusbiga kulmiye aanay taasi dhacdeen. Samaale iyo Ilka Case oo iyagu ka soo jeeda deegaanka siyaasigii shalay tole beesha Ciise Muuse sida weyn iskugu raacday ee Subeerawal ayaa iyagu sheegay in taasi tahay go'aankii adkaa guddoomiyaha oo ka soo dhaqaaqi waayay halkii natiijada ka dhalatay intan kadibna aan loo sii dulqaadan karin ee loo baahan yahay in wax la dhaqaajiyo haddii kale wixii shalay dhacay iyo wax kale oo ka duwan dhici doonaan. haddaba Ilka Case iyo Samaale waba sii kala miisaan culus yihiin. Samaale ayaa ku adkaystay in guddoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed uu ka soo dhaqaaqo doorkii hore iyo go'aankuu taagnaa kaasoo ah in guddoomiyenimada xusbiga aan markan isaga lagula tartamin ee keliya lagu codeeyo. Maxamed Kaahin yaa u oggolaaday inuu noqdo guddoomiyaha, yaa diiday, yaase ka aamusay. waxa uu sheegay taasi inay dhali doonto furfur badan oo siyaasadeed oo xusbiga iyo in xusbiga siyaasaddiisa laga hago bannaanka sidii ay u dhacday. kulmiye ayaan ku ekaan wax iska weydiinta keliya doorka bannaanka ee soo bandhigga beelaha awoodooda ku muujinaya markan doonistooda ah inay qabtaan wambarka guddoomiyenimada. waxa uu Samaale soo jeediyey guddoomiyenimada tartankeeda oo markii hore taagneed isku haysashada shakhsiyaad sida guddoomiyaha hadda talada haya iyo Samaale iyo rag kale inay markan isku bedeli doonto haddii sidan lagu sii eego beelo oo la arki doono beelo kale oo iyaguna sheegayay inay kursigan u madlan yihiin oo iyagu xaq u leeyihiin. intii ay socdeen doodaha wax la iskaga weydiinayay halka kulmiye loo jihaynayo gebi ahaan saxaafadda ayaa bannaanka laga dhigay waxaana loo sheegay warbixinta in lagu siin doono marka uu soo dhammaado shirku. balse intii aanu dhammaan ka hor markii la dhameeyey qodobada hoose sida weyn looga dooday oo kalifay in Kaahin ka soo dhaqaaqo halkiisii hore oo uu oggolaado tiraba 2 nin inay isku soo taagaan jagadaas marka laga reebo isaga oo ka dhigaysa in isaga iyo 2 kale ay ku tartami doonaan taasoo meesha ka saaraysa culayska bannaanka kaga imanaya xilligan ee ay ka waajahayaan qaar ka mid ah beelaha oo sheegaya in deegaan ahaan xusbiga ay xaq badan ku leeyihiin shakhsiyaad iyagu bannaanka ka keenayna markan doonaya inay si weyn uga soo dhex muujiyaan awood ahaan xusbiga. oggolaanshaha Kaahin ee in kulmiye lagula tartamo markan guddoomiyenimadiisa waxay u muuqataa inay jirto kalsooni kale oo Kaahin meel kala kacaysto iyo inay jirto cabsi iyo werwer badan oo kaga abuurmay saamaynta dibadda iyo ruuxanka dhaqdhaqaaqa bannaanka ka socda. sidoo kale kulmiye ayaa si weyn wax iskaga weydiiyay xaaladda dalku waajahayo
oo ay kow ka dhigeen colaadaha ka taagan bariga Somaliland sida bariga Sool oo iminkana ay ku soo darsantay bariga Sanaag oo si weyn Soomaaliya dhaqdhaqaaq xilligan doonayso inay uga bilowdo ciidamada Harimacad ee Soomaaliyana dhawaan la sheegay in laga soo dejin doono Badhan sida ay ku baahiyeen boggooda. Kulmiye waxa uu sheegay markani inay tahay markii uu aragti siyaasiya ka yeelan lahaa xaaladda dalka. Waa kan Shiine oo guud marka bixinaya qodobadaas oo uu ku sheegay in xisbiga Kulmiye si weyn wax iskaga weydiiyay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ay waajahayso Somaliland ee uu dalku ku jiro. Dhanka kale si weyn la iskula qaatay ama si weyn loo qoondeeyay guddidii qabanqaabada shirweynaha xisbiga Kulmiye kadib markii Kaahin iyo Soomaali oo ahaa laba nin oo si weyn iskugu maandhaafsan isaga loo codeeyo oo loogu codeeyo aamusnaan maya iyo haa ee aanay jirin cid la tartanta sidii Biixi hore u dhacday oo kale. Waxa meesha ka saartay culayska siyaasiga ee xilligan iyo saameyntii togneyd ee beesha Kaahin oo markan u muuqata inaanay ka jirin gudaha xisbiga. hase ahaatee siyaasiyiintii doorka weyn ku lahaa Kulmiye ee deegaanka Kaahin ayaan iyagu weli macasalaameen xisbigaas ee weli u ah lafdhabar Kulmiye iyo kaadiriintiisuna ay doonayaan hanashadooda iyo siyaasadkooda walow ay aaminsan yihiin culayska iyo mugga siyaasiyiintaasi inaanay macno badan yeelan doonin inta ay maqan yihiin oolahoodii iyo ardaayadoodii. bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan idinka mahad celinayaa maantana inaad joogtaan iyadoo saxaafadii oo dhan inteedii badneed aan filay maanta inay ku sugan yihiin xarunta guud ee xisbiga weyn ee siyaasiga ee mucaaradka ee Kulmiye. taas waxay tusaysaa ahmiyadda aad u haysaan idinkiiyo dadweynaha iyo taageerayaasha xisbigan iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka soo baxaya xisbigooda ay sugayeen maalmahan. aad baan idinka mahad celinayaa. saad la socoteen waxa maanta halkan ku shiray guddidii fulinta xisbiga Kulmiye oo ay hogaaminayaan hogaankii xisbiga Kulmiye oo horkacayay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. waxaana halka maanta aad lagaga hadlay sidaad ogtiin xaaladda dalkeena maanta uu ku sugan yahay ee Jamhuuriyadda Somaliland ayuu maanta aad xisbigu uga hadlay. waxa aad loo lafaguray marxaladda maanta qaraarada dalkeena uu ku jiro oo ay tahay in xisbigani uu aragti siyaasi ah ka yeesho. sidaad ogtiinba xisbigan wuxuu ka mid ahaa saddexdii xisbi ee dalkan ugu horeeyay oo ahaa saddexdii xisbi ee dalkan ugu horeeyay ee lagaga dhawaaqay. laba xisbi oo ka mid ah meesha way ka baxeen. wuxuu noqday xisbigii saddexaad ee soo hadhay isagu. xisbigan oo ay aragnimo badan u leh dalkan marka halgankiisii iyo dib u dhiskiisii iyo wanaagga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland la eego wuxuu maanta wax iska weydiiyey arrimaha aan idin sheegayo ee ah xaaladda dalka maanta ku sugan yahay. qodob labaad ayuu xisbigu maanta isla ka hadlay oo ah hawlihii xisbigan u yaalay isaga gudihiisa xisbi ahaan u yaalay oo ay ka mid tahay sidii loo gaari lahaa shirweynaha soo socda iyo xilliyada uu qabsoomi doono. dood dheer oo aad u dheer maadaama arrimaha laga hadlayay muhiim u ahaayeen qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xisbigaba maadaama loo baahday in la isla shiilo oo la isla kariyo. waxa xisbigu ka yeeshay dood aad u dheer taasi oo kaliftay in shirkii uu sii socdo isla beritoolana la isugu iman doono halkaana laga sii ambi qaadi doono doodii iyo hawlihii u taagnaa dhammaan guddida fulinta. maanta guddida fulinta oo tiradoodu aanay yarayn waxaa ka hadlay 19 xubin oo keliya. marka intii kale oo dhiman waxaa la isla gartay iyo aragtiyaha soo kordhayba in wixii bari ka dambeeya shirka uu halkaa ka sii socdo. saxaafadan waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad u tixgelinaysaan ee aad u daraynaysaan iyo muhiimadda aad arkaysaan in xisbigan qaranku leeyahay oo aad taa u taagantihiin ayaan aad idinka mahad celinayaa. shirkii xisbigu ee guddida fulintu maanta lahaa saas u sii soconayaa laga bilaabo maanta beritoole ilaa inta laga gaarayo gabagabada muhiimadda qarankan uu xisbigan u leeyahay iyo maanta qodobadii uu ka hadlayay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستفسرين هذه عياد محطتها الصلاة بوقت كذا لا تكذا مركز وكان مع حالات الطلقة ووقتها أردتها حسبينا طول طال وأنا أردت لو ذا السوق يو
maalimahan ba socotay ee leeyahay khilaaf baa xisbigii ragaadiyay ee leeyahay shirki baa la doonayaa maanta dib loo dhigo marka arrintaas baroorta horgeey ka weyn maxaa faahfaahin uga bixin Badriyo horta xaaladda dalku ku jiro iyo xisbiga xaaladda dalku ku jira weyn maanta sidaad sheegaysid arrimahan la leeyahay khilaaf ka jira xisbiga wax khilaaf ka jira ma jiraan hoggaankiisa mar walba gacmaha haysta mar walba isagoo qosliyada aragtaan laakiin mid baan idin sheegaya caafimaadka xisbiyadu wuxuu ku jiraa in la dooduna khilaaf ma aha doodu waa daw xisbiga kulmiyana wuxuu weligiiba ku ahaa caan inaanu ahayn xisbi dictator hoggaamiyo oo yeedhiya wuxuu xisbi mar walba gudihiisa laga doodo marka doodda iyo khilaafku way noo kala laba arrimo kala duwan weyn marka xisbiga horta wax khilaaf leeyahay kama jiraan xisbiga waa xisbi guura oo way araga waxa hogaaminaya rag soo hogaamiyay shirar kuwan ka waaweyn rag iyagoo duurka jooga shirar hogaamiyay waxa hogaaminaya dad way araga marka xisbigani waa xisbi furan oo qof kasto maanta ku cusub iyo kii weligii joog jiray aragtidooda dhiibtaan taasina khilaaf ma way maxay marba guddiga dib ugu dhacaysaa qabanqaabada guddi magacaabisa dib u dhacda ma jirto waxa loo wadaa processkii shirku ku qabsoomi lahaa iyo wixii hadba soo kordhay maanta dalkeena weliba lama magacaabo shirku waxa go'aamiye marka waxa la go'aamiyaa xilliga dambe xilliyada la qabanayo laakiin waxaan ku sheegayaa maanta dalkeenu marxaladdu ku jiro iyo arrimaha shirka xisbigu waa doodaha uu xisbiga u fadhiyo maanta